saddexdii maalmood ee banbaxa waxaad muujiseen dadaal iyo dulqaad waadna ku amaanan tihiin sida xilkasnimada leh ee aad u ilaaliseen waqtiga shirarka iyo firfircoonidii aad uga qayb qaadateen gorfayntii mowduucyadii kala duwanaa ee shirka looga hadlayay arrimaha ugu waaweyn ee banbaxa looga faa'iideystay waxaa ka mid ah in si wanaagsan la isku fahmay qorshe horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo doorka wasaarad walba ay ku leedahay hirgelintiisa heshiisyadii iyo habraacyada doorashooyinka ee dalka 2021 xeer hoosaadka golaha wasiirada arrimaha amniga iyo cadaaladda arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo xakameynta laba kacleynta caabuqa COVID-19 waxaa banbaxan looga faa'iideystay diyaarinta iyo dhamaystirka qorshaha 100 maalmood ee xukuumadda iyo axdi ballanqaadka howl fulineed ee wasaarad walba la gashay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa golaha wasiirada lagu baraarujiyay xeerka iyo nidaamka ay golaha wasiiradu ku shaqeeyaan kaas oo lagu iftiimiyay mas'uuliyadda wadareedka habmaamuuska shirarka iyo hanaanka go'aan qaadashada ee golaha wasiirada sidoo kale waxa aan isla garanay muhiimadda ay leedahay in la qorsheeyo oo laga sii shaqeeyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qof iyo cod ah 2025 kuwaas oo ay soo bandhigeen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa xusid mudan in fulinta arrintan ay qayb ka tahay barnaamijka xukuumadda si looga baaqsado dib u dhac ku yimaado doorashooyinka 4 sano kadib isla markaana sababi kara in mar kale lagu noqdo doorashooyinkii dadbanaa waxaa intaas dheer in aan xoogga saari doono barnaamijka dib u heshiisiinta dalka iyo wax ka qabashada tacdiyada loo geysto haweenka iyo carruurta waxay arrimahaasi ka mid yihiin howlaha hortabinta u leh xukuumadda ugu dambeyn waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada ee sharafta leh howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo la taliyaasha iyo dhammaan ilaalada iyo habmaamuuska xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan halkan noogu soo xirmay banbaxa golaha wasiirada ee halku dhigiisu yahay daafurnaan iyo doorashooyin waa mahadsantihiin shirkan waa xiran yahay